مدنيد أذا مريه هذا أفلحوا أقول ديقايو إنتي مدنيد هذا مريه أماني هذا وناقنا قمودا معالٍ هذا مقديقي ويفتي شيء أقول هذا مقديقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتهاي معالٍ أنا قيريه وقادة تديو أقنت إني أفعتهاي أنا قيريه وقادة تديو وحيل الدكتور فعايشه معالٍ أقنت إني إلي استهايه أقنت إني إلي استهايه هذا أفلحوا أقن ديقايو معالٍ إنتي مدنيد هذا مريه هذا أفلحوا أقول ديقايو إنتي مدنيد هذا مريه أماني هذا وناقنا قمودا معالٍ هذا مقديقي ويفتي شيء أقول هذا مقديقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتهاي معالٍ أنا قيريه وقادة تديو أقنت إني أفعتهاي أنا قيريه وقادة تديو وحيل الدكتور فعايشه معالٍ أقنت إني إلي استهايه أقنت إني هذا أفلحوا أقن ديقايو معالٍ إنتي مدنيد هذا مريه هذا أفلحوا أقول ديقايو إنتي مدنيد هذا مريه أماني هذا وناقنا قمودا معالٍ هذا مقديقي ويفتي شيء maanta oo aynu ku sugannahay degmada taariikhiga ah faca weyn leh soo jireenka ah aataarta qadiimigii taalo la yiraahdo gumburaha ka tirsan gobolka Hawd gobolkii halganka iyo mujaahidiinta gobolkii dalka laga xoreeyay degmada ka tirsan ee gumburaha la yiraahdo oo aad degma aad u taariikh weyn aataar dhaxalgal ah oo umadu ku faantaana ay taalo mid dadban iyo mid daalacanba ayaynu maanta joognaa waxaynu joognaa iskuulkeedii dugsiga hoose dhexe maanta
waxaynu halkan ardaydii iyo maamulkii gobolka iyo kii degmada iyo wasaaraddii waxbarashadaba halkan iyo ardaydii iyo maamulkii kale ma garanaysaa degmada Gumburahaba waxaynu halkan iskugu nimid kaalmo ay sameynayaan ururka khayriga ee deegaan kalkaal hor iyo horaanteed marka hore quraanka ayaynu ku soo dhaweynaynaa sheekh Ahmed أو عبدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله قدوميها محكمة إلهي كتشسايس يو آيات كا قرآن كاوينو أخريي آيات كي سلام كوينو أخريي وحين كسور دوين دونا ayaan la maxamed ciga oo inooga warbixin doona ururkoodan khayriga ee deegaan kalkaal iyo maanta waxay deeq u sidaan iskuulkan iyo waxqabadka ay doonayaan inay for mustaqbalka qabtaanba ayaan la ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladan ee ugu horeeyaan madaxda gobolka Hawd barasaabka gobolka Hawd xogayaha gobolka Hawd iyo xogayaha dawladda hoose isuduwaha waxbarashada ee gobolka Hawd gudoomiyaha degmada fadhineed Gumburaha maamulka kala duwan ee gudoomiyaha degmada Gumburaha gudoomiyaha maxkamadda degmada Gumburaha madaxda kala duwan ee iskuulka iyo degmada bale dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa kulli madax badan baa fadhida oo isuduwihii ciyaaru ka mid yahay dhamaantiin waa salaamantiin baada salaan waxaan doonayaa inaan halkan bal warbixin yar oo kooban aan idinka siiyo ururkan deegaan kalkaal waxa laga yaabaa inaan badankiinu aydan hore u maqalin magaca ururka deegaan kalkaal ururkan deegaan kalkaal waa urur intiisa hawshiisa ugu badan ama baaxadiisa ugu weyn ay ka dhisan tahay wadanka dibadiisa gaar ahaan wadanka Germany waxa weeyaan dhalinyaro ka soo jeeda guud ahaan deegaanada gobolka Hawd uu ka tirsan yahay iyo waliba goboladii faraha badnaa ee degi jirnay oo aan jeclayn imika in halkan aan ka wato maadaama aan waqti aan u siixin inta kadib ururka deegaan kalkaal isagoo ka duulaya baahiyaha kala duwan ee inta badan ka jira gobolka Hawd waxa uu isku dayay bal inuu maxaa la raadayay hawl ka qabto guud ahaan gobolka Hawd iyo degmooyinkiisa gobolka Hawd laba degmo aad oo waaweyn ayaa uu leeyahay oo ugu horeyso degmada Beligubadle iyo degmada Gumburaha degmada Beligubadle sayn la socono waxa ka jira dugsi hoose dhexe oo dhameystiran iyo dugsi sare oo dhameystiran degmada Gumburaha markaynu nimaadno dhibaatada ugu weyn ee markii ay ururka daraasiyeen ka taagneed waxay noqotay dhinaca waxbarashada sayn la wada socono degmadan oo ardayda baaxadda leh ee imikayna hor fadhida iyo guud ahaan deegaamada kala duwan ee degmada Gumburaha hoos yimaadaba
ardayda fara badan leh area ka imanaysaay waxaad garan kartaa inaanay iskuulada ka diyaarsan degmada Gumburuhu aanay diyaar u ahayn inay wada helaan arday iskuul inay wada helaan ay dhameystireen dhammaan fasaladii dugsiga hoose dhexe markaynu ka tagna dugsiga saraba ardayda halkan degmada Gumburuhu san xog ku hayno waxay waxbarasho ahaan u tagi jireen magaalada Beligubadle taasi oo qofka doonaya ardaygu hadduu doonayo inuu maanta lugeeyo oo uu lu ku tago uu saacad iyo charger ku tagi karo inanka yar haddii uu cararana ilaa adigu 50 mid ay ku qaadanayso inuu halka waxbarasho u doonto maadaama hadaba degmadii Gumburuhu waxbarashaduna ay tahay aasaaska nolosha oo iyadu ay ka wada horeyso dhammaan baahiyaha kala duwan ee qofka bini'aadamka u baahan yahay haday noqoto caafimaad haday noqoto deegaanka wax kale laga qabanayo in waxba ay ka horeyso maanta waxbarashadu waayo haddii ciyaalka yaryar maanta aanay basic hoose nolosha hoose aanay alif baataasa iyo baataajo aan loo soo dhigin ardaygaasi ma noqon doono mid sii higsada mustaqbal dheer amaba maxaa la dhahay sii rajeeya inuu waxbarashada caashaqsanaado ama waxbarashada u jeclaado maanta ma yahayn inaan waqtigan aan ku soo gaadhno inaan iskuul aynu aasaasno ama aynu ardaydiisa wax u qabanno waxay ahayd inaynu jiilashii hore baxayba inay ka faa'iideystaan oo horeba loo qaado barasaabadii hore kuma ay guuleysan inay degmada Gumburuhu ka dhisaan iskuul dhameystiran iyo secondary dhameystiran laakiinse barasaabkan cusub ee imika la soo bedelay oo ugu horeyntiiba waxyaabo badan oo furfuritaan sameeyay sidoo kalena anagu urur ahaan aanu ku soo dhiiranay inaan wax la qabanno ama aan wax la qabsano anaga oo aanay maxaa la dhahdaa aanan wax baahiyo halkan maanta shakhsiyadeeda iyo waliba familieskayga u yaalaan jirin laakiinse dadkii deegaanka iyo tolkii iyo dadkii guudeen lagu kala maarmahayn in halkan ay joogaan saadarteed ururkan deegaanka kalkaal waxa uu go'aansaday bal inuu maanta barasaabkan cusub maadaama aanay barasaabada hore aanay awood u lahayn anagu aan ognahay in ay wax ka qabtaan gobolka Hawd oo maalintii xil wareejinta la wada arkay inuu qofku markuu waxa uu xilka wareejinayo waxyaabaha uu tirinayo qodobada uu tirinayo leeyahay maanta kaasaan sameeyo kaasaan dhisay maalintaas ay doonayeen taariikhda soo xisto anagu arkaan maanta qabanayno iyo hawshan maanta qabanayno waa hawlan doonayno garab naga siiyo barasaabka cusub ee gobolka Hawd anaguna aanu la barbar istaagno wax allaale wixii garab ah ama maxaa la dhahdaa dhaqaale ah ama taakula ah ee la awoodi karno inaanu la wadaagno dhinacayagana inaanu sameeyno ururka deegaanka kalkaal waxa uu ugu horeyntiiba hindisaandiisa ugu horeysa ka soo qaatay san horeba idinku sheegnay inuu waxbarashada bal ka dhiso guud ahaan gobolkii Hawd gaar ahaan markaan eegnay labada degmo way u dhameystireen adeegyadeeda waxbarasho oo maantaba anaga u hambalyeynaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hawd iyo guud ahaan macallimiinta degmada Beligubadleba inay ardaydii gobolka Hawd maanta aanu hal qofna aanu ka dhicin ee waliba darajo aad u fiican dhamaantood bay ku wada baxeen oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa dhalinyarada joogtaaba ay aad iyo aad ugu farxeen markay arkaan gobolka degmada Beligubadle inkastoo ilaa hadda ay yirihiin ardayda dhiganaysa ama ardayda memberska ay ka soo baxaysa guud ahaanba degmada Beligubadle sidaa darteed degmadan Gumburuhu waxaanu jeclaanay maadaama ay tahay degmada labaad ee ugu weyn gobolka Hawd isla markaana aan haysan basic waxbarashada inaanu urur ahaan basic waxbarashada ee gobolka ee degmadan inaanu ka shaqeyno gaar ahaan dugsi hoose dhexe bal dhameystiran sida ay u heli lahayd maanta sidaynu arkayno halkan waxa ka jira 3 fasal san arkayo oo waliba 2 fasal maxaa la dhahdaa oo ay yihiin sida rasmiga ah ardayda uga shaqeynaya waxaan filayaa wax la dhahdaa ardaydu ma imanayaan laakiin waxaan filayaa haddii maanta ardaydaasi helaan meelaha ku soo hortaan ama waalidku ay ogyihiin in ardaydo dhan ay ka helayaan meelo ay carruurtoodu ay waxbarasho ama dhameystiran ay ka helaan inay dhamaantooda keen laayeen sidaa darteed waxay hawl ka bilaabeen markii barasaabkan cusub la soo bedelayba bal inay yiraahdaan warniyo barasaabka cusub bal horta aynu xog ka raadino xogtii laga raadiyay barasaabkan cusubna waxa noo soo baxday inuu yahay nin awood u leh ama karti u leh inuu gobolkan wax nagala qabto inaguna aanu fikirkeeda bilownay oo hawsheeda iyo contributionkeeda iyo arinkeedaba aanu bilownay bal inaanu maxaa la dhahdaayay aanu dugsi hoose dhexe meeshan 6 fasal oo 6 dugsi hoose dhexe sidii ay u heli lahayd ugu horeyn oo lagu kordhiyo 3 galaas hore jiray maadaama ay dugsiga hoose state galaas lagu dhigto inaanu dhammaan wada dhameystirno galaasada dugsiga hoose dhexe sidaa darteed maanta halkan waxaan u nimid
halkan maanta waxaan u nimid inaanu bal soo indheyneyno ama aanu soo aragno waxbarashada degmadan Gumburaha oo sagaalka balalka ay taagan tahay alxamdulillah kul hadii meel arday laba ardayna waa lagu bilaabay hadii maanta arday lagu bilaabo ama arday wax xaqi hoose wax laga soo bilaabay maanta joogan waa alxamdulillah anagu arinkan maanta keenay ujeedadeedu ma ahayn oo deeqdan yar ee kooban ee halkan keenay ma ahayn inaanu maxaa la dhahdaa ardayda aanu ugu tala galnay maanta halkan u nimaadno laakiin waxaan u nimid bal inaanu ka arinsano sidii halkan dugsi hoose dhexe oo dhameystiran looga dhisi lahaa taas weeyaan ujeedadaanu maanta anagu halkan aanu nimid aanu doonay inaan ururkiina aan warbixin ka siino guud ahaan waxbarashada maxaa la dhahdaa maamulkii waxbarashada ee barasaabkuba uu ururkaasi oo maanta laga yaabo hadalku ku hadlo ama sidoo maanta ururkaasi wax uga bedelo inay noqon doonto mid maxaa la dhahdaa ay maanta iskuulkaasi noogu dhameystirmo ama maxaa la dhahdaa aynu rajeynayno inay dad fara badan oo hawshan maanta qabanqaabadeeda u istaagay inay dhameystiraan hadii ilaahay idmo halkan maanta deeqdeena kooban ee waliba deeqdan ay tahay deeq indheendheena doonay bal ardaydii yareed baan inaan soo eegnay iskuuladii aan nidhi warniyo idinko iska tagayo bal idinka oo gacmaha wax ku sii sidayna tagtaan baa wanaagsan maxaynu u sii qaadi karnaa ardaydii yareed ardayda yareedsan wuxuu ku soo helnay arday iskuulka dhigata iyo arday kale malcamada dhigata ayaa ay u farbadan yihiin halkan basic oo soo joogta ardaydan halkan joogta waxaan ugu talagalnaa balnimaantinadi waar balniyo qiyaas ahaan intaynu qiyaasno aynu ardayda waliba si yaryar ee si u kala hooseeyaan maanta waxbarashada ugu sii bilaamayaan ee ay u awoodi karayaan maanta in halkan sameeyaan inaanu ugu talagalnay ilaa iyo 180 arday inaanu siino maxaa la dhahdaa 6 maado buugaag ay ku dhigtaan inaanu siino kalabaadna waxa kale oo aan halkan ugu sidnaa wax weyn adeegyadoodii kale dhameystiran haday noqoto qalimaantoodii ay ku dhigan lahaayeen haday noqoto iskiisadii wax ku masixi lahaayeen haday noqoto labadii qalinkii biirooga ahaa iyo qalinkii beesalka ahaa ee caruurta yarsay bal iyagu imika maadaama aan haynin imika aanay raadkii ardayga yar kulli wuxuu ku haminayaa maanta haduu waliba barasaabkan leeyahay kulli culayska inaad nala dareento caruurna kulli waa dashay maxaa la mas'uuliyadana waa mid xagga adduunyo xagga aakhiraba laga xisaabtami doono ardayda yar maanta haduu sida halkan ka muuqato laba galaas ba ardayga u jooga hadii aan 1 iyo 2 iyo 3 ardaygaasi aanu dhaafi karin ma ku hami karaa in waxbarasho halkan ka bilaabo waa mayade waa ardayga wuxuu jecel yahay inuu ilaa iyo eed meel uu ka arki karayo uu arkay jaran sii socoto uu arki karayo inuu muuqato ayaa uu ardaygaas ku haminaya marka inaan taa wada dhisno anagu aan gacmaha kula qabanno wixii aad maxaa la dhahdaa arrinay nooga baahatana aan kula shaqeyno inta aad joogtana maalinta kulli maalin baad xilka wareejinaysaa inay noqoto insha Allah maalin aynu tirino wax qabadkeena inta tiro ku sheegi kari weyno insha Allah aad buu ku soo gudbiso ayaan doonaa wax qabadkaaga hadii la haydmo ugu dambeyntii qalabka kale sidna waxay haayeen samuuradii wax lagu qoranay kulli imika samuurada ay ka dambaysan board ku dhisanay waxa weeyaan samuuradii old version ka ahaa imika hargeysadii iyo guud ahaan dadku caalamku way ka sii gudbayeen oo ah samuuradii lagu baranay tabaashirta sidaa darteed saddexdan galaas ee maanta halkan jooga waxaan ugu talagalnay inaan balortay maadaama kulli wasaaraddan oo la joogtay doorkeedii ugu muhiimsanaa bay inaan ay qaataan laakiin kulli dadka deegaanku waxay maanta kaga caawinayaan inay saddexda galaasba samuuradahan aanu ka bedelno oo ku xidhna samuuradaha casriga ah ee maanta Hargeysa laga isticmaalo oo ah samuuradaha whiteboardska loo yaqaano marka waxa kale jira inaan kaga tagayn waliba samuuradahaasi maadaama samuuradahaasi qalin u baahan yihiin laakiin kulli qalinkaasi wasaaradda waxbarashada halkii ay u gelinayeen qalinkaasi waxay u gelinaysaa maanta waxa weeye tabaashirta halkii u gelin jirtay waa in qalinka u geliso anaguna maanta halkan waxaan ugu sii sidnaa muddo ilaa maxaa la raadayay xilli waxbarashada macallimiintu qalimaantii ay ku sii dhigi lahaayeen hadii ilaahay raado sidaa darteed waxaanu maxaa la raadayay uga mahad celinaynaa dadka deegaanka gobolka Hawd gaar ahaan degmada Gumburaha sida qiimaha leh noo soo dhaweeyeen intaan hawsha wadnay maanta anagu waxaan doonaynaa inaan maxaa la raadayay raashinadin qaybino ama inaan kaardisino laakiin waxaan doonaynaa in kala shaqeyno sidaad wax u baran lahaydeen caruurta yaryar ee meeshan ka soo baxaysa degmada Gumburuhna ay noqon lahayd caruur anfacda mustaqbalka gobolka Hawd guud ahaantiiba aad iyo aad ba maasantihiin aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan madaxda kala duwan ee gobolka Hawd kulli waan dheereeyay laakiin waxaan jeclaan inaan inta ka qayb qaato hadii ilaahay ilaado waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay ayaanle iyo ururka khayriga ah ee deegaan kalkaal oo badan niman dhalinyaro oo qurbaha iyo gudahaba jooga waxaan leeyahay dhulka iyo qurbaha ka jirtaba dhalinyaro toosa waxa mid laga tiiraanyooda
wax laga tiiraanyooda badhasaab goobtani waxay ahayd goobtii laga difaaci jiray taliskii beligubadle ee Islam waxay ahayd meeshii ay ku dhaawacmeen saraakiishii ugu waaweynay dagaalkii halkan ka dhacay wax laga tiiraanyooda in maanta qalin iyo buug loo bariyo waayahay ama dhalinyaro dibadda joogta ay soo xusuustaan alka aad baan uga xumay laakiin waxaan doonayaa inaad gaadhsiiso madaxweyne oo kamid ahaa raggii dagaalkii beligubadle ee gumuraha ka dhacay galay beligubadlena aagii lagu ilaalin jiray isagu fadhiyay ahayd waayahay intaa haddaan kaga gudbo waxa aan ku xigsiin doonaa nageeye ardaydan quruxda badan ee ubaxa wadanka gudoomiyaha gobolka Hawd gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hawd labada xogayaha degmada beligubadle iyo xogayaha degmada gumburahaba isu dawayaasha xogayihii gobolka Hawd ayaa isaguna meesha nala fadhiya dhammaantiin aad baan u wada salaamayaa madaxdan gobolka Hawd iyo degmadaba ka socda ee halkan fadhiya runtii waxa idin siiyay warbixintii aanu halkan u nimi waxa idin siiyay ayaan leh arday waxaad ogaataan in maanta adduunyadu ay u gudubtay casri u gudubtay casrigan ay adduunyadu maanta u gudubtayna laba mid uunba maanta horumar gaaraya soo ima wada maqlaysaan laba qof uunba maanta horumar gaara adduunyada waxa la isku guumeystaa waxa weeyaan waa dhaqaale iyo waxbarasho marka haddii aanad labada hub sidanin waxa hubaala inaanad noloshaada ku guuldareysan doonto idinka waliba mid baa idin dheer maadaama meel hawda aad joogtaan oo miyigii joogtaan waxa idin dheer inaydun haystaan shaqo kamid ah ama shaqada ay soo qabteen inta badan ambiyadii Ilaahay adduunka u soo diray waxaad soo marteen inaydu ari raacdaan inaydu xoolo raacdaan xoolo raaca ceeb maaha waa shaqada ugu muhiimsan inay tahayna waxay noo cadeynayaan ambiyadii Ilaahay dhammaantood waxay ahaayeen ari jir bay ahaayeen soo taariikhda ma haysaan annaguna waxaan ballan qaadanaa inaanu sida ay tahay runtii aanu ku garab istaagno wax kula qabanno maaragtay aanu kula hawlgalno ayaanu ballan qaadanaa meesha waxa fadhiya gudoomiyihii waxbarashada oo arrinkan aad u xuquuseeyo ee gobolka oo wasaaradda dhameyd matalaya waxaan leenahay gudoomiye maanta waad arkaysaa wixii aanu ardayda u keenay roolkii wasaaradda waxbarashadana waanu tabaynaa degmadu way u baahan tahay waxa weeye waxa hubaala in degmada gumburaha maanta ardayda waxbarasho heli karta iyo waxa u dhisani aad buu kala yariyay runtii taasina waa ayaan darro weyn waxa weeye waa inay ardaydu helaan maanta intanoo galaas way buuxaan haddii maanta la israa sanad dugsiyeed ku bilaabmaya maanta haddii la israahdo arday kale hal la qoro oo la yidhaa meel looma hayo waa ceeb weeyaan ceebtaasina dee wasaaradda waxbarashadu may dul tegaysa marka waxaan leenahay waa annagu roolkayga waanu qaadanaa ka deegaan ahaan wasaaraddana waxaan doonaynaa maanta inuu gudoomiye halkan kaga jawaabo walaasabka gobolka xogayaha gobolka iyo xogayaha dowladda hoose xogayaha dowladda hoose ee gobolka xogayaha dowladda hoose ee gobolka isuduwaha waxbarashada ee gobolka dhalinyarada deegaan kalkaal ee kala duwan ama madaxdaba ah gobolkan Maroodijeex iyo dhammaan dhalinyarada kale ee deegaan kalkaal ee deeqdan iyo hamigan keentay meel kastoo ay joogaanba dunida dabadeeda iyo dalka gudihiisaba aad iyo aad baan u salaamaya waxaa kaloo aan salaamayaa ubadka yaryar ee ubaxa ah ee quruxda badan ee maanta hor fadhiya ee sida fiican u labisan iyagana waan salaamaya waxaa kaloo aan salaamayaa gudoomiyaha maxkamadda oo aan ka tegay waalidiinta ardaydan dhashay oo dabadda tuban oo maadaama uu naqaadi waayay fasalkan aan imika ku jirna waxaan salaamayaa dhalinyarada hamigan keentay dhalinyarada maanta deegaan kalkaal ee na xasuusatay ee na soo ixtiraamtay ee noo keentay deeqdii ugu horeysay ee noo dhagax dhigaysa deeqdii ku xigtay ee aanu filayno inay wax badan oo kalena ay noo keeni doonaan oo aanay noqonaynin tani tii koowaad ee ay tahay mid noo socon doonta haddii ilaahay yidhaahdo waxaanan leeyahay halkii aad ka soo saarteen waxaan aan noo sidaan
ilaahay wax khayr qaba haydin geliyo aad iyo aad baan idinku ducaynayaa hadalka ku dheeraan maayo waynu isku dambeynaa qalinkaa wax suureeya buu yidhi hadraawi kugu sima halkaa doonto saaxiib kal furan weeye sunta fara ku-hayntiisa weligaa ha sii daynin sisiniyo ku beer muufo iyo laanta saytuunka ku qotomi sugnaan waarta iyo nabadda seeskeeda ku burburi sarbaa mooska iyo soohdimaha leexsan ku mideesa moodraaca dad midabada la socsoocay dadka 10 saamooda xogayaha degmada baligubadle ama gobolka hawd cabdikariin cabdiraxmaan madar soo dhawow xogay bismillaahi raxmaani raxiim runtii xafladan qiimaha badan ee aan galabta joogo waa xaflad aad u qiimo badan waa xaflad mahadnaquun aanu soo jeedinayno ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa barasaabka gobolka hawd xoghayaha degmada maayarka degmada baligubadle maayarka degmada gumburaha gudoomiyaha maxkamadda agaasimayaasha iyo isduwayaasha gudoomiyayaasha waxbarashada bulshooyinka ardayda dumarka intaba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii xafladan waxa weeye xaflad aad u qiimo badan oo ururkan deegaan kalkaal ee dhalinyaradu ay hormuudka u tahay ee ayaan la xalliye iyo nageeye maxamed xasan ay hormuudka uga yihiin gobolada Maroodi Jeex iyo gobolka Hawd ee runtii ay deegaanadooda wixii ay ku dhaamaan ama ururkaas uu hayo kolba uu qabto runtii waxaan uga mahad celinaynaa galabta inay galabta soo gaarsiiyeen degmada Gumburaha 3 fasal samuuradahoodii white blackboard ka ahaa iyo qalimaantii iyo buugaagtiiba inay soo gaarsiiyeen 3 fasal oo dhammaystiran runtii waxaan uga mahad celinaynaa Gumburaha inay keenaan marka anoo mahadnaqaaya ururkan deegaan kalkaal hormuudkiisa oo aan halkan ka xusaayo ayaa la xalliye iyo nageeye maxamed xasan oo markasta iyagu dhalinyarada ugu firfircoon deegaanada ha noqoto gobolka Maroodi Jeex iyo Hawde waxaan u sheegayaa tayadii waxbarashadu sanadka iyo kii ka horreeyay intuu gudoomiyuu yimi inuu wax badan walaalayaal ka bedelay idinkuna ha ku ekaanina degmada Gumburaha kaliye sidaad sheegteenba degmada baligubadle iyo degmooyinka gobolka guud ahaanba wixii aad u tari kartaan waxaan idinka codsanayaa inaad gaarsiisaan aad iyo aadna waan idinku mahadnaqayaa aad iyo aadna waad u mahadsantihiin socdaalkaad soo gasheen iyo wixii aad sidaanba insha allahu tacaala maalmihii qadhaadhaaya halgankii dadweynaha reer Gumburuhu naf iyo maalba waxay u hureen inay dalkooda xoreeyaan maantana naf iyo maalba haday u huraan inay waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo horumarkooda dhisaan cidda wax qabsan kartee wax lala qaban karaa waa iyaga haddii aanay iyagu sare u kicin oonay dhiiranna waxba dawladdu ma qaban karto waa laba dhinac dhan barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen Gumburahow toos ayaanu leenahay عبدي ما جامع ما يركز عب كالوتمو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه هراء برصاحة قولك إن قدوميها دقمة جمبرها قدوميها محكمة دا هويها قولك إن دلنيرة أوركن إن خيريها ديجان كالكال waxaan isku salaamay salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan maanta noo farxada oo aad ugu faraxsanahay ururkan khayriga ah ee deegaanka kalgaal maaha markii uu horeysay uu wax qabto waa urur soo jeeda oo hormuud ka yahay ayaan la xayiliyay iyo nageeye maxamed aad iyo aad barteed ku mahadnaqaynaa tan oo kaliya maaha wax fara badan baa qabateen gobolka qabateen waxaan anigu qodob yar baan ku darayaa si badin maayo waxa iskuulkan deyr ma leh waxaan isku tashanay inaan deyr sameeyno si kii daahir dibad culuw ee aanu contribution ku dhisnay qaybteedana waan ka qaadanay hadii la yiraahdo nahay degmada baligubadle waxaan aad ugu faraxsanahay labadan fasal ee ay ururka khayriga ee kalkaal deegaan kalkaal ay dhisayaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa wax ka badan oo khayr qabanayna inay gaarsiiyaan degmooyinka tuulooyinka kale ee haday balag casay haday hunguriyortay oo mid walba ay ku dadaalnay si ay wax u helaayeen
أما مقال حالبة هذه أدنى وأنتم منطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxbarashadu waxay qayb laxaad ka qaadataa horumarka bulshada ee dhinac walba ah sidoo kale waxaan ogsoonahay qiimeynta la sameeyay in 60% guud ahaan bulshada reer Soomaaliland ay yihiin kuwa wax akhriya waxna qora 40 ka soo harayna ay yihiin bulshada ku nool deegaanada markaasi miyiga halkan waxa ka muuqata deegaankan isagoo ah deegaanada kamid ah goobaha ku yaala markaasi hawdka wuxuu kamid yahay deegaanada markaasi waxbarashadu ay soo kobcayso oo waxaad ka garan kartaa inta hablood ee markaasi halkaasi fadhiya hablahaasoo ahaa kuwa markaasi la raacin jiray ariga iyo markaasi hawlaha guriga maantana la soo saaray oo loo soo saaray in ay wax bartaan sidoo kale degmadu waxay ku sutan tahay oo ay taariikh ku leedahay waxa la wada ogsoon yahay inay tahay akaademiyad markaasi soo saartay shuyuukh kamida markaasi sheekhyada ugu caalimsan geeyga Soomaalidu degto waxaan ogsoonahay in uu sheekh dir xagan uu ka soo baxay ibtii maadigana maanta ay dhalinyarta deegaanka ka soo jeedaa ay maanta ku darsanayaan 2 fasal oo ay dhameystirayaan iskuulkii hoose markaasi dhexana aynu insha Allah u gudbi doono ka mataqaana gobol ahaana wax fara badan ayaan insha Allah ka taageeri doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay xogayuhu degmadan gumburuhu waa degmada uu ku aadsan yahay Suldaan Faarax suldaankii ugu horeeyay ee dadweynahan ku nool deegaankan hawd suldaankoodii koobaad waa bartu ku aadsanayay waxaan ka xasuustaa inay degmadani tahay tii uu ku dhaawacmay taliyihii ku-xigeenkii iyo taliyihii ciidankii koodbuur ay ku dhaawacmeen weeyaan nimanka waxaan u yeeri doonaa in yar isna ku hadli doona afka dadweynaha iyo bulshada ahna af gudoomiyihii maxkamadda Ahmed Aw Cabdi Sheekh Ahmed Aw Cabdi ayaa in yar ku hadli doona degmada gumburaha codkeedii soo dhawow sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إلهي بمهد مركب كوباد waxaan ka soo dhaweynaa oo aan si sharaf leh oo qiimo leh ugu mahadnaqaynaa dhammaan madaxda gobolka hawd ka timi ee ugu horeeya gudoomiyaha gobolku iyo ururka deegaan kalkaal oo nagu cusub warkiisu imaka oo nagu cusub oo deegaan kalkaal baa leeyahay waaba magacaaba cajaayib gaara leh taasina waxa weeye dhammaan baan waanu mahadnaqaynaa haddaan xagga tacliinta in ka idhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu koonkan ka saarayay mugdiga ayuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam jibriil baa loo soo diray waxaa la yidhi اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق لما قال مركو نبي ساير مركو تبي ساو يرعى ما تشري صلى الله عليه وسلم هذا مثلا كملك عما تشري دي يقرأ رب طبعا تواكي سو يرد خديتو يمي سو يرد عنا سنبقو زميلوني إذا دبولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاي سبحانه وتعالى يسوق تعليمتك هذا وحوري هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مية سميهن ضدك وحيقانية ضدك وحقونه إلهي بس سبحانه كونك إلهي أبو ربع سافر لي نعم محمد نيسكو ضدك الله هذا يوحوري أطلب العلم من المهدي إلى اللحد وحد دون تا نبي محمد أو كد الأشياء أو ضدك نفرتها قفكو ضربتها الماير وحوتك إلا إلك أنت كده حيسقف مركز رون تلورة بقالو تعليمته يدو ويه هوسيسي أنا أحب قرينه ونجو هوسيسي الحمد لله رب العالمين ساك هدي له ديار جروبي أو لا ديار جروبي أو هدي يو قبل كم حيسوي سو ديار جروبين أنا قلنا وحنا بلن قاعدنا هذا إنه هدي كنا ديار جروب هدي دير للسماينة يا هدي واحد اسم الله سماينة وين ديار جروبنا كنتم حبضوضو تاجورة سوي بنية كبقول حبوت سوي بنية شن بقول سوي بنية كوكو سوي بنية
waanu bilaabayna anaguna qaybteedaanu qaadanaa taasaanu nana ballan qaadayna qayb waxaanu taa idinla samaynaysaan wax alaali waxaa nooga baahata maan wadayna qaybteeda yaanu qaybteeda ka qaadanayna taasaanu ballan qaadayna dhammaan waa salaamantihiin waanu idin ixtiraamaynaa sharafta iyo sida wanaagsan ee noogu timaadeen aad iyo aad baanu idiin soo dhamaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu laba kelmadood oo yaryarun baan ku darsan lahaa waa ta koowaad ee warbixinta iskuulka haddaan idin siino iskuulka waad arkaysaanoo 3 fasal iyo ofaskiyo aad u ciriiriya goobtii feedingka wax lagu karinayay iyo store iyo 3 suuli ayaa harto dhismihiisu ka kooban yahay oo aad iyo aad ayay u hooseeyaan waxa weeyaan xaqiiqiyan awal hore intii imika muddo 2 sanadood ka horeysay ama 2 sanadood ba aad inaanay weli gaadhin baan filayaa dugsigan aad arkaysaan maruu xidhmo iyo maruu furmo ayuunbuu ahaan jiray aad iyo aad buu hooseeyey laakiin imika 2 sanadood ee dambe waa arkaysaan oo imika halkaa waxaa inoo fadhiyaa waxa weeyaan waa gabdhihii yaryaraayee wax baranayay ardaydii inamadiina dabaday fadhiyaan waana idiin soo ducaynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa iskuulkan waxaanu leenahay baahi fara badan baa taalla oo mid dhismo leh oo mid qalabayn leh aad iyo aad baan idiin salaamaynaa gudoomiyaha gobolka hawd ee waxbarashada aad iyo aad buu harto intii ugu dambeysay annaga degma ahaan wax noogala qabanayay barasaabka cusubna waxaanu leenahay aad iyo aad wax noogala soo qabanay in horta marka hore soo wareysano waxa weeyaan imanka muddadan joogay gobolka waxa ahayd 2 sanadood ayaan u maleynayaa haddana 2 bilood meelahaas ka dhiman adigu 2 sanadood waxa weeyaan ugu horeyntiiba si deegaanku wax u qabsadaan war ummadda waxa wax lagu horumaraa war waxan baan haystaa wax igu dara cid kasta waad ka adkaanaysaa waana ku khasbantahay ugu horeyntiiba waxa ka bilaabay horta 4 degmaba inay helaan ay dadku isku tagaan oo dabeetana waxaan u sameeyay bahal la yiraahdo account baan u sameeyay 4 degmo si ay ugu tartamaan 4 degmo horta aynu ka hagaajino iskuulada 4 degmo sida deerka oo kale galaasadaynu korino kale oo inta contribution la sameeyo dawladda wasaaradda ilaalinta wax baan hayna wax nagu dara hasa ahaatee account-kii laga sameeyay gumburuhu hoos baa la iskaga dhigay waxay wax ku soo dhaceen account-kii bilgubadle iyo account aan u sameeynay magaalada yar la yiraahdo ina cunaaya kiina cunaayay waa buuxsamay macal bilgubadle ka horeeya waxay yiraahdeen dollarkii iyo kaashkii waa buuxsamay waxay yiraahdeen noo soo kordhiya oo noo soo furo dib noogu soo kordhiya horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan anagu ka wasaaradaha ballan qaadayna maadaama boqolkiiba konton aad la timaadeen anaguna boqolkiiba konton kale inaan ku darno labada galaas dhisaysan labadoodii baan anaguna dhagax dhigayna labadoodii ayaan anaguna dhagax dhigayna mar labaad iyo mar saddexaad baan ku mahadnaqayaa dhammaan qolqol jooga iyo qurba joogana waxaan leeyahay war ummaddu waxa weeyaan markay qacmaha isqabsato ayaa wax la gaari karaa hal la isqabsado qacmaha qurba joog jarmalka quraatay imka nabadii noo sheegay jarmalka quraan deegaankeenu ma joogaan midkeenu ma joogaan meel kasta ay joogaan waxaan leenahay war ummadeeni haddayna wax u qaban cid wax ku qabanaysa ma jirtee war cid kasta waxaanu ka adagna war waxan baan haysanaa wax noogu dara aynu cid walba kaga adkaanayna waxaan markaa idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsantihiin dadaalka ardayda iyo cid kasta oo joogtaana ha la sii wado qacmaha ha la isqabsado sidaa ha lagu sii wado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay hadda maamuluhu wuxuu inoo sheegay inay meesha 3 galaas yaalaan 8 standard 1 ilaa standard 8 ay tahay waaye standard 1 ilaa standard 8 waxay u baahan yihiin 8 galaas 8 galaas meesha 3 baa jira waxay naga maqani waa 5 laba waxa ku dhawaaqay ururko way mahadsan yihiin iyo 3deynu haysanay waa 5 labana wasaaradda ku dhawaaqday labada markad afarta markad u geysa 3deeni waa imsa waa 7 ya waxay noo haray waa mid Soomaha si aynu 8 u buuxino iyo mid aynu ugu tala galo library-gi halkii ay wax ku akhrisanayeen ardaydu deegaankiina labadaas looga baahan yahay inuu qaato gudoomiye waaye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
واي إمك واحد كسر دويني يا هدبا برس هابلا أمبا هير الكائن دكتة ما أنتم بينو سيدي حد جود كي هلاي برس هاب كني هلاي إلى هاي نو بركيور تأمينا برس هاب كي ما كسر دويني يا برس هاب كسر دوو برس هاب كم يعيش وحويان أحمد عيقة محمد أحمد عيقة محمد waxaan xusayaa ugu horeeya ururka deegaanka kalkaal ee maanta ay nagala joogaan ay matalayaan ayaale maxamed cige iyo nageeye tiimka alaabta keenay aynu aadka ugu baahnayn kuna ballan qaaday inay inoo dhagax dhigi doonaan amba aynu iminka dhagax dhigi doono 2 fasal oo la soo kordhiyey aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa urur dhalinyaro oo lagu tilmaamay meel kaliya inay joogaan ka gobol ahaan waxaanu soo dhaweynaynaa oo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa inay community kasta amba ururo kasta oo doonaya degaankooda inay wax u qabtaan wax kasta oo xagga gobolka inaan u fududeyno inaanu dhul la raadino aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay waa urur dhalinyaro waxaan rajayn doonaa insha Allah waan ilaahay ka rajaynaya in la helo ururka haweenka qurba joogga gobolka Hawd oo iyaguna sidan oo kale waxbaanu qabanaynaa ku tartamaya ururka odayaasha amba ragga odayaasha waaweyn oo iyaguna sidaas oo kale wax qabanaya oo maalmaha kamid ah ayaanu waxa qabanaynaa waxaan ugu mahad celinayaa degmada Gumburaha waa degmadii ugu horeysay marka laga tago xarunta Baligubadle iyo socdaalkan ku soo maray degmooyinka ee igu marti qaaday inaan meel dhagax dhigo iyo inaan magaranaysaa aan imaado marka aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin taa waxaan siyaasadda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaad wada ogsoontihiin qof kasta xaquuq wuxuu leeyahay inuu waxbarasho helo caafimaad helo biyo helo tamarteennana waa ka warhaysan intay leeg tahay laakiin waxa la isku dhaafayaa community-gu wuxuu in dadka deegaamada qurba joogga iyo kuwa deegaamada ka baxsan tuulooyinka iyo degmooyinka ee caasimadda jooga sida ay u shaqeeyaan ayaa ummaddu isku dhaafaysaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ururkiina dad badan anigana dhiirigelin bay noqonaysaa inaan garab leeyahay dhalinyaro ah oo qurbaha jooga iyo kuwo jaamacadaha dhigta iyo kuwo gobolada jooga oo garab taagan aad iyo aad ayaan ku mahad celinayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah ayaan la wuxuu yiri oo igu dhiirigelinayay si ay maalinta aad meesha ka tagto ay wax u noqoto waxaad sheegato aad u keentid ayaanu ka caawinaynaa insha Allah waniguna dadaal wuxuu yiri ninkii dhirbaaxada ceel cad baan uga ibi inaan gobolka Hawd wax la qabto wixii tamartayda diyaar baan u ahay fasal labada waxa dhisaya deegaanka labana wasaaradda waxbarashada labadana ururka deegaan kalkaal 6 fasal ilaahay noo fudeeyaa amiin